أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيارتا إيجا داوانيسا هودا halkani waa 5 Somali TV waa barnaamijkeennii habnololeedka waxaa la socodsiin doona anigoo ismahaan maxamed qayb xaaji cali xaydar iyo xarunta weyn saldhiga 5 Somali TV Nairobi oo ku leeyahay insha Allah cashirkii hore wixii aan uga hadlay waad la socoteen intii daawateen waan idinka mahad celinayna falcelin oo idinkana reaction inaad sameysaan waa muhiim ku soo dhawaada barnaamijkii hore waxaan uga hadlayay cibaadada intii dadku u kala qaybsamaan iyo say dadku u maleynayaan cibaadadooda inay tahay iyo sida laga rabo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena habnololeed inta badan af Soomaaliga yar dhibaayo haddaan idin macnahay waa lifestyle nolosha saxda la rabo inay ku hagto maaha maxaan ku dhahay nolosha inay kolba dhinac ku qalqaloociso laakiin waa inaad adiga saxataa oo adiga ishagtaa nolosha maanta nahagaysa marka environmentiga nahagay laakiin in anaga nolosheena hagno qaybta sida loo rabo marka habnololeed second example tusaalaha labaad ayaa wuxuu noqon doonaa caafimaad markii qofka dhagihiisa ay ku soo dhacaan ama kelmadda caafimaad ama health oo maqlo wuxuu niyadiisa ku soo degdegaysa qof jiran ama gacan ha ka jabnaado ama il ama madax ama dhaawac ama caloosh banaanka ha taalo ama gudaha cudurro xun iyo cudurro basiid wuxuu dooniba ha haye qof jiran baa ku soo dhacaysa laakiin aniga caafimaadkan ka hadlaayo caafimaadkaas idinkaad u maleynaysaan iyo isagoo ka sii ballaaran oo aad u badan caafimaad habnololeed qaybtiisa caafimaadkan uga hadli doono ayaa wuxuu noqon doonaa mental health maskaxda inay caafimaad qabto maxaan ku dhahaye emotional inaad caafimaad tahay dareen ahaan dareenkaaga ma dareen xanaaqsan ba masoo waa dareen caafimaad qaba physically jirkaagan sidii ilaahay ugu talagalay lixaadkaaga ilaahay ku dhameystiray caafimaadkii ma qabtaa mase dhibaatooyin kala ku haysta chiefkaaga maxaa ka khaldan cuntadaada maxaa ka khaldan relationshipkaaga yani lamaanaha labada isqaba iyo labada ishukaansanaysa iyo labada isla ganacsanaysa iyo shaqaalaha iyo booska ninka ugu sareeya shaqaalaha iyo ka ugu hoose iyo ka ugu dhaxeeya xiriirka laga rabo xiriirka ugu caafimaadka badan waa xiriirkee levelkee way kala leeyihiin waxaan idinka raali gelinayaa kelmadda Englishkan isticmaalay laakiin af Soomaali baan ku dadaali doonaa iga raali ahaada qiyaas intee leeg inay isku jirsadaan oo iskula shaqeeyaan baa la rabaa xiriir nooceen uu ka dhaxeeyo ayaa la rabaa xiriirka ugu caafimaadka badan oo ka dhaxayn kara shaqaalaha iyo ka shaqaaleysiiyay waa xiriir nooceeya gurigaaga markaad joogtid haddii shaqaale ku joogto shaqaalaha adiga ka dhaxaynaya iyo adiga shaqaalahaas caafimaadkiina intee buu leeyahay yani wada xiriirkiina waa mid jiran miya mid uqdad ku jirto miya adiga iyo ilmahaaga caafimaadkeedin ka dhaxeeya adiga iyo odaygaaga hadii naag lagu la qabo adiga naagta lagu la qabo hadii shukaansid ku jirtid shukaansiga badbadan iyo shukaansiga yaryar iyo hal iyo laba iyo luqluuqa iyo luqluuq maro laazim jidka waa ku soo dhacayaadi xageed kaga jirtaa ka caafimaad ahaan ganacsigaaga caafimaad ma qabaa marka ganacsigaaga caafimaad ma qaba aan ku leeyahay maxaasid baa tahay ma ummadaad ka daba shaqaysaa ma wax waxa tahay dadka soo koobiyay oo dadka waxay keenaan keenay ma waxa tahay qof maskaxiyan isaga wuxuu hal abuurtay la imanaya ma waxa tahay dadka ku mashquulsan wixii la soo xidhanay ma adiga wax ku raali gelinaad xidhataa labiskaaga labis caafimaad qaba miya gurigaaga ma caafimaad qaba dadka intaad gurigooda fiirfiirisid ma wixii yaalaad soo gadataa ma adiga ayaa ishagaajisid gurigaaga ma caafimaad qaba noloshaada dhan ma caafimaad qabtaa ya marka caafimaad sidii idinkaad u maleynayseen oo qofkii intuu dhakhtarta wakiineen la qoshoraba cabay maaha waxa waaye caafimaadkan aan ka hadlayo waa practical waa dadaal juhdi qofka inuu tajribo sameeyo dadaal inuu sameeyo inuu naftiisa loolanka isaga shaydaanka iyo naftiisa u dhaxeeya inuu ka raayo oo waliba uu ku dabaqo noloshiisa wax ilaahay raali ka yahay markaan caafimaad ka hadlayno haddii laga maqan yahay oo waalidkaaga kula joogo iyo haduuna kula joogin caafimaad noocee aad ku nooshahay waxaad ku nooshahay waa la ifiirinayaa khaladkan ma sameeynaa ma waxaad ku nooshahay aniga saan u dhaqmo baa qusaysa caafimaad habnololeedka caafimaadka aan uga hadlayno fari kama qodna dabcan wax tusaalihiisa intan aan ku soo koobi kara maaha laakiin koba meeshii aan isleeyahay dhibaata ka jirto inta badan ee bani aadankan ku dhex jiro waxyaalahan ka soo daraaseeyay iyo waxyaalahan isleeyahay way jiraan wixii xal u ah ayaan sheegayaa caafimaad markaan leenahay jirkan ilaahay baa sameeyay sidan ku abuuray
sidanu ilaahay ku abuuray ma ku qanacsan tahay ma ku caafimaad qabtaa niyadaada ma ku xasilan tahay mase waxaad leedahay sanka ay gaaban afkan bishmihii baa yar waan weyneynaya labadan baa yar gaboobay waan giijinaya sajiraan isku sameynaya waxaad leedahay murqihii aan dhisaya iskuma qanacsanid miya qaabkan ma ku caafimaad qabtaa noloshaad ku jirtid iimaan ma ku iimaan qabtaa mase iimaankaaga waa nusqaansan yahay ma qanacsanid waxaad isku furtay frustration daaqado badan kugu furan dabeel badan ku soo gelaysa marka waad babanaysaa markaan leeyahay guri aad ku dhex jirtaa daaqado badan ayuu leeyahay guriga waa tusaalo daaqadihii dhan waa furtay daaqadihii dhan markaa furtid qof degan ma noqonaysa dabeesha inta dhinac kasta dabeesha kaaga imanayso marka waxaad noqonaysaa dhinacan iska cilaad isleedahay dhinacan iska cilaad leedahay dabeesha markaa way ku qaadaysaa ama tusaale kale haddii aan keeno waxaad tahay qof aan go-aan lahayn maskaxiyan waa jiran tahay waa jiranta markaan kule maskaxiyan tii waalnayd maaha qofka silsilada inta lagu xidho meelaha dadka walwaale la geenaya maaha waa adigoo socdo isu maleynaysa inaad caafimaad qabtid laakiin waa jirantahay maskaxda ka jiran tahay waayahay maskaxda aad ka jiranaatid waxaad ku dhex jirtaa environment khaldan oo aada u buuq badan marka adiga stable ma tihid ma deganid intaa raaci maskaxdaada marka way wareereysaa maskaxda caafimaad qabta waa tee marka qaabkan ilaahay shakligan uu kuu sameeyey ma ku qanacsan tahay haa alxamdulilah rabbil caalamiin jirkan waxaa ku dhex jira wax la yidhaahdo qalbi ama maskax waxaad u taqaanid qaab ilaahay jirkan ugu dhex sameeyey ayaa jirta marka remote-ka maskaxda ayaa wado xaggan u leexo adiga marka haddii marka maskaxdaada ay caafimaad qabto remote-ka adaa haysid oo wadaysid haddii aadan remote-ka gacantaada ku haysanin wax banaanka ka imanaya ku wado weefka ku qaadayo mar xagga badda waa aragteen markay saan u soo baxdo qashin oo dhan bay soo qaada hadana noqon marka adiga waa lagu qaadaya waa lagu wadaa ma deganid ama ilmaha yar markuu sariirta ku kor ciyaaro ruuxmaya marka adigu waad ruuxmaysaa qof xasilan ma tihid waxa kugu hareereysan ayaa kulba gees ku qaadaya maskaxda xasilan marka maxaa laga rabaa maskaxda caafimaadka qabta waa midda qaadatay waxyigii rasuulkeena kusoo degay calayhi salaatu wasalaam jismigeena waxaan dhahay sidanu ilaahay noo abuuray waa labo waa qalbigii iyo jirkii wuxuu ku nool yahay ancaamta ilaahay dhulka ka soo bixiyay ama khudaar ama badar ama xoolahan geela iyo adhiga iyo lo'da la qalanayo digaaga iyo kalluunka la cunaayo wixii cunto oo dhan dhir ha noqoto wax la cabi ha noqdo ayu nooc adduunka ilaahay dhulka ka soo bixiyay waan cunaynaa maxaan u cunaynaa inaan ku helno awood caafimaad aan ku dhaqaaqno ku shaqaysan karno marka ma cunto caafimaad lan cunaa mase cunto jiran baan cunaa adiga is ogow marka waxaan ka hadlayo marka ay dhageysatid su'aal maskaxdaada weydii qaybtaba iga qusaysaa adiga isu jawaab daawade gabadh iyo wiil waxaa tahayba maskaxda sida jirkeena u baahan yahay aroortii inaan qureecano oon siino maxaa la dhahaa awood ayaa maskaxdeena waxay u baahan tahay inay awood qaadato maskaxdeena waxay ku nooshahay marka waxyiga 7 samaawaad 23 sano rasuulkeena lagu soo dejinay calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena waxyiga ku soo degay hal mar waa lagu soo dejin karay laakiin 23 sano ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam inba mar ku soo degaysay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam isagana uu qaadanay uu dabaqayay asxaabtiina uu ku dabaqayay oo ku tarbiyeynayay annaga marka dadka hadda jooga maxaan sameynaynaa oo laynaga rabaa inaan aayadihii ilaahay waxyiga samada ka soo dejiyay waxay ina farayaan aan qaadano waxay naga reebayaan aan ka reebtoono axaadiistii rasuulka ka soo arooray iyo dhaqankii asxaabtii iyo taabiciintii iyo khulafaa raashidiintii dhaqankoodii sunnati wa sunnatul khulafaa raashidiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhahay inaan jidka toosan inaan ku dadaalno maskaxdeena marka caafimaadka aan quudinayna wuxuu yahay dikriga ilaahay maskaxdaada hadayna haysanin oo ilaahay ayna ku xidhnayn oo tashwiishkeedu badan yahay ma caafimaad qabtid waad ligliganaysaa iliga marka ilmaha yar ka dhacayo waad aragteen soo u ligligana mar buu soo dhacaya adiga marka maskaxdaada way ligliganaysaa saad u ligliganaysid shaydaanka kolba dhinac ka soo galaayo aad u qasmaysid marka dambe nolosha ka dhacaysaa noloshaad ka dhacaysid marka waa nolol nooceeya waa tii adduunyada waad ka dhacaysaa qeyrkaaga la facma noqonaysid wax soo saar ma yeelanaysid qof hor u socda ma noqonaysid
qof la amaanayo loo duceynayo la xushmeenayo ma noqonaysid aakhirana maxaa ka horeeya allahu aclam hadis weydii